hanaanka maaliyadda Soomaaliya markiisa horeba ma ahayn mid caga adag ku taagan saasoo ay tahay waa wasaaradda maaliyadda wasaaradda ugu dhaqaalaha badan marka xataa fiirsanaha budgetka wasaaradda kan marka loo fiiriyo waana meesha kaliya lacagaha ugu badan ee qolyahan global World Bank iyo IMF iyo lacagta ay ku bixiyaan mar walba waxa arkay hadda sanadii la soo dhaafo kale waxa jirta budget $100 milyan oo kaliya loogu talagalay tababar iyo systemkii iyo qaabka ay u shaqeysay wasaaradda $100 milyan marka waa budget ka badan ugu yaraan 15 wasaaradood oo hadda ka howlgala wadanka ay ka budget badan tahay wasaaraddaas tusaale ahaan wasaaradda beeraha oo kale amini waa $2 milyan budgetkeeda waa $2 milyan wasaaradda beeraha waan marka Soomaaliya marka loo fiiriyo wasaaradda muhiim ah bravo qayb kamid ah wasaaradda maaliyadda budgetkada 10 milyan waa hadda qayb kamid ah mawduuca iyada wax kamid ah marka waa dareemi kartaa wasaaraddaas sida ay loo taatiyo jirta hadana adduunyada waxa ugu jirnaa musuqmaasuqa kaalinta koowaad oo annaga mar walba kaalinta koowaad galno marka ma garan karo sababta ay u dhaceyso arrintaas iyadoo lacag intaas badan ku bixeyso marka usoo laabanay su'aasha ah isbedel ma ku imaan karaa maadaama isbedel golaha wasiirada aniga ka dhaqaaleyahan ahaan ama ka falanqeey ahaan ima muuqato inuu isbedel dhacayo sababtu waxay tahay waxay ku shaqeeyaan road map sida daawa adiga ka dhawaajinayso intaan sheekada barnaamijka noo bilaabanin wada jeexan ay marayaan marka bayle waa shakhsi systemkaas oo qayb ka ahaa haddii uu baxana marka systemkiisa u sii jiri doonaa dhinaca kale marka aad fiiriso diin cafinta Soomaaliya waxaa hogaaminayo ama majaraha u hayo waa dadkan loo yaqaan beesha caalamka IMF iyo World Bank-ga ayaga u sheegay tilaabadaha qaadina waxa ogeeyay sanad ka hor mar ay dawladda Soomaaliya xataa isku dayday heshiisyada ganacsiga xagga oo shidaalka batroolka in la rabo in la saxiixo daqiiqadii ugu dambeysay waxa la sheegay IMF iyo World Bank inay soo farageliyeen ay ku dhaheen ma saxiixi kartiin heshiiskaas maxay wuxuu ka soo horjeedaa dhinaca fiiska marka waxaad dareemaysaa gacanta kuma hayo wasiirka iyo maxaa la wasaaradaba nidaamka shaqada awood sare ayaa jirta shaqada dabcan marka si loo fiirsano wali waxaa moodaa inay macnaha waa nasiib daro in macnaha 1950 ilaa 60 Soomaaliya waxay soo martay xilliga xornimo gaarsiin oo nidaamkeeda dawliga waxa gacanta ku hayay wadamadii markaas xornimada gaarsiinay hadda oo marka 2020 aan joogno nidaamka maaliyadda Soomaaliya waxaa moodaa wali in looga dictate gareynayo wallahi do this and don't do that dhahayaan IMF iyo World Bank marka su'aashaadi ahayd si guud ahaan dhaho saameyn ma ku yeelan karaa isbedelka golaha wasiirada jawaabtu waxay noqonaysaa